بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي الكسو دبادة ورك عالم كودين كغيمان كالسن تي في حرونتي مقالة لندن. قodobada warkeedin ku hayo waxa kamid ah gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda halkaasi oo casuumaad uu kaga helay dhiggiisa dalkaasi. Gudoomiyaha maxkamadda qaranka Caydiid Ilka Xanaf ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen dacwad maalmihii u dambeeyay u dhaxaysay maamulka gobolka Banaadir iyo muwaadin Soomaaliyeed taas oo sheegay in natiijadeeda ay ku dhawaaqi doonaan. madaxweynaha maamulka Puntland Abdiraxmaan Faroole ayaa maanta waxa uu ka qayb galay shir looga hadlayay isgaarsiinta iyo xawaaladaha kaas oo ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi. gudoomiyaha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya oo magacaabay gobolka Galgaduud ayaa waxa uu sheegay in uu wax badan ka qaban doono arrimaha ammaanka iyo horumarka deegaanka kadib shir saxaafadeed oo maanta ku qabtay magaalada Muqdisho. wararka aan idin hayaa ayaa waxa sidoo kale kamid ah weliga daawade ma aragtay ra'iisul wasaare isagu markaasi tagsiilaha iyadoo xilliyada horena uu shaqadiisa xafiiska ra'iisul wasaarenimo uu gudanayo xilliyada dambe ee galabkiina markaasi uu tagsiilo u yahay. warbixintaas ayaa idinku haya oo xiiso leh iyo sidoo kale ciidamada booliiska dalka Greek oo iyagu ku raad jooga 10 muhaajiriin ah kuwaasi oo ka baxsaday xabsi ku yaala dalkaasi.